xildhibaan Jaamac Jibriil oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Sanaag waxaana uu fariin u diray shacabka ku dhaqan gobolka Sanaag iyo guud ahaanba Somaliland waxaana uu sheegay inuu nabadda la xijiyo sidoo kale xildhibaan Jaamac Jibriil waxa uu ka hadlay in jabhadda ka jirta gobolka Sanaag la soo gabagabeeyo oo ay gacan bira ku qabtaan dawladdu horta meeshu waa Ceerigaabo waxa ina soo galay gobolka Sanaag dhibaatooyinkii ceelfooyin ka jiray garaadag ayaad moodaa in loo soo raray dhinaca maxay tahay xaggan magaalada madaxda dad nabada oo maxay ahayd iska joogay dhulkooda ayaa maxay ahayd loo soo raray dagaalkan waxa soo raray dadku hadday munaafaqad ka shaqeeyaan dadkii isleenayay ee walaalaha ahaa ayaa la kala taageeray habaryonistii bay taageertay habar jecladii bay taageertay marka dagaalku wuu idii imanayaa shaydaannimo kala taageerteen dhexdhexaad maydin noqon ummaddii ilaahay umaydin garniqin cid walba waad maagteen waad kala raacdeen marka dagaalku idigafi maayo idinkaana ku dhimanaya war waxaan idin leeyahay nabad baynu rabnaa toobadkeena inaga daaya waxaana walaaqaysaan ilaahay ka baqa dadkaas walaalaha u duceeya u garnaqa u taga caawima laakiin haddaad kala raacdaan wallaahi waa ku gubanaysaan iyo bilaahi tallaahi ta kale dawladdu horta anagu ma rabno jabhado dawladdu way garanay cidda wax wada ha la soo qabto jabhadaha cidna yaan laga baqin wala habar jeclo wala habar yoonis nabadaadana nabadana dawladda ka mas'uula dawladdu mas'uuliyadeeda way gabtay bendoodii ay soo rogtay way joojisay adeer dawlad haddaan laga baqin macna male sharaf male dawladdu waa inay qabataa wixii hubkii waa inay qabataa waa inay hubkii xareysaa waa inay dadkii dembiga maxay tahay qabataa oo xareysaa oo ummadda ka qabataa ummaddii iyo iminka meel walba dab la suray dabkaasuna wuu sii fidayaa hadhowna meel aan la gaadhin ayuu gaari doonaa dhanka kale xildhibaan Jaamac Jibriil waxa uu fariin u diray maamulka gobolka Sanaag oo uu sheegay inay shaqadooda qabsadaan horta barasaabkii hadda waa maqan yahay Hargeysa uu jiraa in badanna wuu maqnaa meel dagaal ka socdo oo dhibaato ka socotana barasaabku inuu inta ka maqnaado ma yahayn oo isaga madaxweynaha wakiila maamulka imika halkan joogana wax awood uu leeyahay iyo wuxuu qaban karaa iyo maartay anigu ma maleynay in qaban karaan hadda madaxda ciidamada ayuunbaa wax qaban kartaa laakiin maamul wax ka qaban karaa ma jiraan hadda arrimaha Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Cabdirasaaq Suule SAB TV Ceerigaabo